بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبي صلوات ربي والسلام عليه وحق السجن حديث صحيح مسلم كالسجن وورنا يا عياض المشاجعي نبي وحق السجن إنه يري أهل الجنة ثلاثة أهل الجنة والصدح معناها اللي موضه إن صدح ذا كلية كوبيهين ahlu jannuhu waa saddex ay qaybtan ba kamid ah si lagu ogeysiiyo hadii astaamahan aad leedahay ma aad sameeyso waxyaabahan oo kale ahlu jannata dhu sultaanin muqsitin muwaffaq ninka ugu horeeya ma qofka ugu horeeya waa qof suldaan leh macnuhu waxa weeye madaxweyne boqor mas'uuliyad qof leh qofkaas oo muqsit ah cadaalad u saaxiiba qof cadaalad fala وموفق الله سبحانه وتعالى ووافجين عدالة سماواتك يطلك وحي كتغيه هو عدالة إن الله لا يظلم الناس شيئا إلهي سبحانه وتعالى عندما ظلميه النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي وحي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ظلمك أنا اسكحرنت مبوي الله سبحانه وتعالى لحديننا وحن كدغي حاران إلهي وحوليه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وحان قطان كو أتاغن عدالة إلهي سبحانه وتعالى مرقاته نقضى إن عدالة أتاغنتين ولو على أنفسكم فيالكين كركين هذاني أو الوالدين أو والدين أما أقربا كل وحلوبة هي إن أذقوا عدالة كسوغنته مركا ذو سلطان قفك سلطان كأساحلك oo muqsitun ah oo waxa way cadaalad ku sugan muwaffaq Allah subhanahu wa ta'ala uu waafajiyay ka ayaa waxa weeyay ahlu jannaha kamid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam noo sheegay xadiis kale todobada harka Allah subhanahu wa ta'ala haraysanaa yawm al-qiyamah waxa kamid ah imaamun aadil qof madax ah oo cadaalad ku sugan cadaaladu dhamaanteen waa looga baahan yahay waana asbaabaha jannada lagu galo koow mid labaad waa rajulun qof رحيم النحريس بدن رقيق القلب قلبي سنة أوجر عسيه لكل ذي قربة ومسلم قف قستو قرابة يا مسلم جود أي أوجر عسيه أنا نحريس بدنيا نحريستو ولا ليال وحا كل سنة دين إسلامك بينما civilization هذا كله أما تتك كله أو صومري أدون كان ayagu ay ku dhisan tahay aniga iyo xoogayga iyo aniga maxaan helaa iyo maxaa igu jiro islaamku wuxuu ku dhisan yahay naxariis Allah wuxuu leeyahay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin nabi maxamed sallallahu rabbi wa sallam alayhi maanan qudirin illa naxariis inaad tahay lil alamin unka inaad u tahay naxariis إلهي وحوليه سيدو كلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نحريس ألا حق سكاهاتي دراد أيا أدقو وجرع سنة ذاتك أو نقطة مد جرع سن هدي أد أهل لهد مد أدق قلبي سنة أدقهي ذاتكو ويكا عر اللهين ما كان نحريس تجرنا ذا لوقلا قفك إنو يهي رقيق القلب قف قلبي جرع سن ذاتك أنحريسان أيو حاسكي سيقولك أنحريسان أيو ذاتك أولا شقين أي شقادا أنحريسان ardayda isku galaaska ay fadhiyaan una xariisanayo dadka ay wax ay ka wada dhaxayaan una xariisanayo qalbigiisu jecel yahay qofka soo qaraabo ah iyo muslim ah u jilicsan qofkaasi waa ahlu janna qaybta saddexaad nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi wuxuu yiri wa rajulun afifun mutaaffifun qof afifun mutaaffif dhu ciyaal doorsoon haddana dhoorsanaanta ku dadaalaya duu ciyaalin caruurna u saaxiib macnuhu waxa weeye qofkaasi caruur badan buu leeyahay biilna uma hayo laakiin dadka waxba weydiisan maayo wuu sabrayaa waa cafiifun mutacafif laga yaabaa inay caruurta hortiisa ku oynayaan waxbarashay u baahan yihiin xoogaa risqiga ku adkaaday laakiin qofna weydiin maayo لا يسألون الناس إلحافا كواس ددك ويدين مايان waxaa loo haystaa inay yihiin dad xoolo leh oo dadku waxay u heestaa qofka inuu fiican yahay laakiin weydiisan maayo tawakkulkiisa ayaa xoog leh qofka dhoorsoon ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa jecel yahay yawma alqiyaamana qofka jannada ayuu galaya marka saddexda waa saddex ilaahay subxaanahu wa ta'aala
ahluljanna uu ku tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo qofka dhoorsoonna diintiisa waa u badbaadaa asagana waa badbaadaa sharaftiisana u badbaadaa laakiin baryo badan soomaalidu waxay tidhahdaa baryo badan iyo bugto badan waa isku nacaa qofka haddaa maanta dhan leedahay biilka ii soo dir oo waxaa isii haddee adigu tawakulkaadoo dhan waxaa laga yaabaa inaad qofkaa saarto haddii laakiin aad shaqaysato oo dukaan yar aad furato oo xoogaa aad orodo laga yaabaa inaad waxaa weye ka faa'iido ilaahayna subxaana wa tacaala risqi uu kuu furo allah naga dhigo dadka wanaagsan oo ilaahay subxana wa tacaala arsaaqdiisana ha noo furo baabadiisana alle subxaana wa tacaala ha noo furo aad baad u mahadsantihin allah jannaha naga dhigo aad baad u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu